qulqulka daadadka ka dhashay fatahaadda uu webiga Shabeelle ka sameeyey in ka badan 30 tuulo oo hoos yimaada degmooyinka Mahadaay iyo Jowhar ayaa barakiciyay boqolaal qoysas ah waxaana sidoo kale ay jireen boqolaal hektar oo beero ah. maamulka ayaa wada isku dayo uu kula tacaalaya fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameynayo gobolkan waxaad moodaa in biyaha awoodoodu ay yihiin kuwa aad uga weyn hawsha laga hayo oo laga hortagayo fatahaadda ay sameynayaan. maagay ayaa ka mid ah tuulooyinka ay biyahan fatahaadda saameyn ba'an ay ku yeelatay waxaana biyahaasi ay jareen boqolaal hektar oo beero ah. waxaa jiro dhibaatooyin fara badan oo tuulada maagay mar walba soo qabsan jiray sanad walba qabsan jiray hadda ayaa lagu timid anagoo maanta isleh alxamdulilah nicma joogtiin oo isleh oo zircigii awrood u yahay oo baasha ninkii gadaya yaqaane oo habka ay joogto taqniisha ka bacdi ilma habuuqa idin cunaya cambuur bajaqay cunaya daangay cunaya anagoo isleh dhibaatada ayaa lagu dhacday buq ayaa lagu soo baqday weligeedna waan u soo baqi jirtay laakiin maanta khasaaraha oo dhiciraba khasaare ka weyn ma arkin khasaare ku diin manihi canugaadaaba kaa dhimahaayo nafta ku bixayso hadda adduunyada waxaan u sheegaynay dhibaatada maanta aan ku jirno in gargaarna la fidii ayaan jecelnahay dad Soomaali aan nahay dad muslimiin aan nahay intana arkayso maqalkayna iyo muuqaalkayna arkayso oo bini aadan u gargaari leeyahay dad loo gargaaro saddexdii sano ee ugu dambeysay tacbatada beeraha iyo dadka deegaansada jiinka ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ahaayeen kuwa iyagoo aanan ka soo kaban saameynta sanadkii hore uu ku yimaado sanadka kale oo barakac iyo baaba beereed ah. nolosha dadka ku nool jiinka dhinaciisa 90% ninkan ayay la mid yihiin xilligan waxa ay ku jiraan la tacaalida nolol maalmeedkooda caadiga ah oo biyihii ay la tageen wixii ay ka maareen jireen. الرحمن الرحيم ونكو أهر ماجي وبيه نوصو فسهين ساكي بوركي أنكو عليه إنه نوصو جبسدي ويبلد كنا سو قلهم حتى المهيجي يعني وابعونا ملايكا نقول مناقص سكوا ملايكا محلي راي شرفته كان لقوا دواء حتى بعوجوه $8 مجد كرني عد على عدي وإحنا نوصو تبروعي كرت أنا لو سوقار وسدقدق أنا لو سوقار هذه علمي علابتي عم بناك وبيعوا ولا ريالو أنا لو سوقار تضرب بقول قوسنا ولبعتها يسوي هير ما جينا ناي أنا لو سوقارو طبعاً وعن وباهناي دريالا وباهناي درمايا وانا لو سيسيري وباهناي عنطو وباهناي وح انو نلقو سو تبروع او سدقدق انا لغا سو غارو وباهناي هرماغاناي سدقدق انا لغا سو غارو امدنا محمد اناي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دويناي aragtada inay lagu raaxaysanayeen wax nala qabtaan u baahnay shiid loo dhanayna haysatay lug bari oo dhan لقبري ودن أنتوا وجيسي لا يجور أنتنا لا يجمعوا أنت أنا سانا ودواتي سنا يصدقك أنا لو سوقارو وحنا هرماجي وانو جدين وعو باغنا إننا لو سوقارو إنه عرب تاني علم هايني ميل مسقوقني قناعة ونصير دربو cunto xumo oo si dheertahay cudur inuu nagu dilaaco waanu dhowdahay markaana laga soo gaaro. waxaa jirta saluugyo dhinaca caawinta ah oo ay dareemayaan dadka ku nool tuulooyinka iyo deegaanada dhacajiinka ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo ah ismoodsiinta inaanan lagu gurman sida loogu gurmado xilli fatahaadeedka sanad walba dadka ku nool Hiiraan sida ay qabto hooyadan dhibaatada ka hadashiisay ee ku nool tuulada Timiro oo fatahaadda ay saameysay. بلد وين يو ملكس ديارة لو قرمنا أنك محا أنك نقدبي أنك صومالي أنك منيو أنك قبل كشوية هذا أنك مكترسنيو أنك رفات وابكو جرناي رفات كلام تمانو نقيدين بيها عقارنا أو إذن كو جادين المحانا أكو دحجران ميلو أولوك دكتان مالي ميلو كو دلنا مالي ميلو كو قبيتنا مالي ميلو كو توكنا مالي وانو جاد عبد الله يوسف حسين وقدوميها تولد بورفولي وحانا وعدسانيا إن قرمت للقارو beeraha uu waxyeeleeyahay marka hadda waqtigiisa la joogay xil roobeed waay wabigi biyo soo qabtay hadda uu nagu fatahay xataa ma haysano jawaano oo ma aragtay xoog anagaaba haysanabe oo wax aan ku qaban xataa ma haysano meeshan waxaan aan u hoos tagnay
hirshabeelana hadda wax jawaano oo weli gacantayn ay kusoo ridina ma jiraan aba yaraatee beerayna hadda biyaa kusoo fasahaaday hadda waxaa naga go'ay ilaa iyo maaragtay dhul fatahaad uu gaarsiiyey biyaha 70 ilaa 100 wax ku dhow oo maaragtay saacad oo waxa ku aadan hektar hadda waxa dhulka ku aadan yahay oo hadda gooyay 100 hektar amba wax ku dhow haddii maalmaha haddana sii xigo jawaano nala keeni waayo meeshaas waxaa ka imaanayo dhibaato badan oo xagga dalaga ku aadan beerayna hadda inta deema oo lagu leeyahay ma gudaan mana gudi doonaanba haddii ay nabadgelyo heli lahayn xataa ma gudaan haddii fatahaad ay sii timaadna waxa ma dhawow waa waxay joogaan waxaan loo dhawaa karin marka walaalayaal anaga culayskaasaan haysto saacadaha haddana xiga haddii jawaanadaasna la soo gaarsii waayeen beerihii way sii go'ayaan gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa waxa uu ka sheekeynayaa tuulooyinka saameynta ay ku yeesheen fatahaada waxay baabi'iyeen dalag badan tuulooyinkina waa ku socdaan biyuhu sidaa daraaddeed intaas waa tagnay inta aanan teginna waa ka badan yihiin oo waqooyi jiro iji leh oo hurwey leh oo uubaala leh oo diin laawo leh oo masuur iyo duduble cadalow burcadheer webiga shabeelle aad uu fataha degmada Mahadaay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa laftirkiisa la hadlay dawladda Soomaaliya kormeerkeena maanta labada degmo aan ku soo marnay wuxuu ahaa u kurgalida xaaladda dhabta ee ka jiro deegaanadaas degmada Mahadaay iyo Jowhar runtii dhibaatada ka jirto labada degmo aan tagnay waa mid aad u baaxad weyn degmada Mahadaay hadda dalaga ku go'ay ilaa 20 hektar dadka barakacay ilaa iyo 50-60 tuulo ayaa laga barakacay waxay mudan yihiin gargaar waxaan ugu baaqayaa bulshada Hirshabeelle kuwa Shabeellaha dhexe beesha caalamka dawladda dhexe in il gaar ah oo xooga lagu soo fiiriyo ummadaas waa bil Ramadaan lana garab istaago waxaan leeyahay dhibaatada ugu badan maanta Hirshabeelle Shabeellaha dhexe ay taagan tahay dawladda dhexana waxaan leenahay il gaar ah lagu soo fiiriyo gobolka Shabeellaha dhexe sidoo kale waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa maamulka gobolka Hiiraan sida ay u ajiibeen baaqi wasaaradda ee isxilqaanka ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cali Xaaji Cabdulle Isgoowe ayaa waxa uu deeqbixiyaasha ka codsaday in tala farahooda ay ka baxday iminkana looga baahan yahay in loo gurmado dadka fatahaada ay waxyeeleeyeen waxaan nahay kormeer oo aan ku galayno labada degmada Mahadaay iyo degmada Jowhar webiga wuxuu ka sameeyay fatahaadaha iyo dhibaatooyinka ka jiro Mahadaay waa ka warqabnaa waa soo aragnay tuulada Shaan Buurfuule Mareerey dhinaca degta bari haddii la yiraahdana Buul Axmed Cogow Sabuun Muryaale intaasba webiga waa korshub oo si caadi ay u korshubaya sida aan ka warqabtiin ama aan ka warqabno tuuladii Tuugaarey inay dalagii ku yaalay oo hadda maartay lagu noolaalahay beeraha igo habuuq in ay biyaha gooyeen tuuladii Maagay dadka tuulada dhexdeeda inuu baahal ku cunuhaayo ayada taas waa la ogyahay haddii sana hore ay ahayd Beledweyne maanta Maagay ayaa mudan in loo soo gurmado oo tuulada dalag waa soo warkeeda waa meel dhaafay dadkii ayaa halis ku jira marka waxaan leenahay reer Hirshabeelle in la isku soo gurmado dawladda dhexe inay noo soo gurmato annaga tala farab ku hayna baan sheegimayno waxaan tari karno waa tarnay wixii naga tambatana mar horena waxay ahayd maartay oo gacan jabta gunay u taal talada oo Hirshabeelle maanta ama webiga oo maanta dadku ku sameeynayo waa naga tambadatay in laga soo gaaro oo dadka shacabka laga soo gaaro tuulooyinka ugu daran ee xilligan ay fatahaadaha la keeyeen waxaa ka mid ah Gaashaanle Tuugaarey Magadley Kulmis Maqdis Maagay Buurfuule Eji Masuur Oobaale Lamawaab iyo tuulooyin kale oo dhowr ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa raadiyaha iyo telefishinka Dalsan
jowhar.